till the day I die. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka adiga daawanaysaan waa YouTube channel-kayga Cabdalla Muxya. sida wada sugayseen maanta waxaan ku balansanay inaan soo geliyo videogii ku saabsanaa sidee loo xareeyaa lottery. boqolkiiba 99 asxaabtu waxay soo weydiinayeen sidee loo xareeyaa lottery, xagee laga xareeyaa lottery, maxaa la isaga baahan yahay. videogii ka horeeyaan kusoo sharaxnay shuruudaha looga baahan yahay qofka intuusan xareenin lotteryga. soo marka waxaa laga rabaa inaad soo diyaarsato inta aadan xareysanin sawirkaaga size-kiisa inuu saxan yahay, baasaboorkaaga si aad uga fiirsato informationka aad gelinaysid waa inay islahaadaan waxaad ku qoraysid iyo baasaboorkaaga waxa ku qoran insha Allah. sidoo kale waxaa laga rabaa inaad soo diyaarsato emailka, ha ahaado Gmail, ha ahaado Hotmail, ha ahaado Yahoo, ha ahaado. sidoo kale waxaa laga baahan inaad soo diyaarsatid adresska halka aad degan tahay iyo meesha aad ku nooshahay. sidoo kale dadka ku xareysanaya caruurtooda iyo xaajigooda ama xaajiyadooda waxaa looga baahan yahay inay soo diyaarsadaan dadka la xareysanayaan informationkooda insha Allah. soo dhawaada, waa kana waxaad joogtaan meeshii saxda ahayd. videogii aad raadinayseenna waa kana insha Allah. Let's go. Bismillah. waa kana videogii qaybtiisa kale. waxaan ku bilaabeynaa Google-kan tagaynaa number 1, waxaan ku qoreynaa DV Lottery. markaa ku qortid wuxuu ku geenayaa dhowrkan website. marka insha Allah midka ugu horeeyaan ku dhufaneynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. ay ku qoran tahay Electronic Diversity Visa Program. kadibna koraan u soconeynaa, waxaan tagaynaa hoos u soconeynaa, waxaan tagaynaa Begin Entry. meesha cagaaran aan ku dhufaneynaa insha Allah si website-ka aan gudihiisa u galno. markaa ku dhufatid meeshaas website-ka wuxuu ku keenayaa page-kan ku keenayaa. waxaa ku qoraysaa xarfahaas madowga ah iyo cadaanka isugu jiraan. xarfahan marka aniga keyga u siinaya, hadhow marka adiga abalaagareynaysa xarfihii way ka duwanaanayaan. marka insha Allah meesha wixii kugu qoran aad gelinaysaa hadduu Ilaahay yiraahdo. si saxna u geli insha Allah. markaad si sax u gelisid wuu kuu galayaa andan website-ka waxaad gudahan usii galaynaa insha Allah. haddii uu kaa khaldan yahana asagaa kuu sheegaya inuu kaa khaldan yahay insha Allah. marka submit-aa leedahay, wuxuu ku keenayaa meeshii laga buuxinayay gamekii meeshuu ka bilaaban lahaa. 15 qodob ah maalinkii idiin sheegayay videogii ka horeeyay waa kana. marka mid u buuxineynaa. markaan buuxinayo anaa tusaale ahaan isugu buuxinayo, sawirkaygaan isticmaalayaa balse magacayga saxan iyo informationkayga ma gelinayo insha Allah. tusaale ahaan ugu buuxinayaa saad u aragtaan qaabka loo xareeyo. videogan sababtaan usoo duubaa waxay tahay dad badan ay soo weydiiyeen qaabka loo xareeyo oo aan ka seenin sanad walba lacag looga cuno. videogan reasonka u sameynayo waxay tahay inaad barataan qaabka loo xareeyo oo aydan u baahanin qof bini aadan ah inuu idin xareeyo hadhow insha Allah. marka waxaan ku bilaabayaa last name-ka meesha ku qoran. informationkan aan gelinayo informationkayga ma ahan, haddaba la socda. information kaleetaan gelinaya oo qof kaleeta magaciisa, balse sawirkaan isticmaalayo wuxuu noqon doonaa sawirkayga insha Allah. waxaan ku bilaabayaa magaca ugu dambeeya. last name waxaa laga wadaa magaca awowgaaga. waxaa ku xiga magacaaga koowaad. first name ku xiga. first name waxaa laga wadaa magacaaga koowaad. waxaa ku xiga markaas magaca middle name-ka magaca aabahaaga. no middle name haddaa rabtid waa dhihi kartaa oo ma isticmaalaysid haddaa rabtid. markaan intaas dhammeeno waxaan u imaanaynaa qaybta labaad ee genderka ah. male maa tahay mise female, lab miyaa tahay mise dhadig, rag miyaa tahay mise dumar. aniga waxaan dooranayaa male sababtoo ah nin ragaan ahay. qaybta saddexaad aan imaanaynaa waqtigaa dhalatay, bisha, maalinka iyo sanadka. waa inaad ka weynaataa 18 sano. marka waxaan geliyey bishii waxaan ka dhigtay bisha 12aad, maalinka waxaan ka dhigtay
maalinka 12aad sanadkan waxaan ka dhigay 2000 informationkayga maaha oo idinku soo celcelinaa ninka muxuu isla yareenayaa la sadhihin xageed ku dhalatay magaalada ku dhalatay waxaan ka dhigayaa inaan ku dhashay magaalada Muqdisho reer Muqdisho qaabka waa balaagareen heleen inta ka fiirsada insha Allah dadkoo dhan maxaa lahaa qof walbana meeshuu ku dhashay waa inuu geliyaa waxan waa tusaale example saad ugu fiirsataan insha Allah qaabka loo xareeyo magaalada ku dhalatayna mar walba baasaboorka si ugu qorantaa waa inaad ugu qortid baasaboorkaaga isoo agdhig qaabka uu ugu qoran yahay saa u gelisid insha Allah country where you born wadankii aad ku dhalatay Soomaaliya waaye Soomaaliyan ku qorayaa so qaybta lixaad country of eligibility so Soomaaliya waa loo ogol yahay yes aad already dooran yes taada ku dhufanaysaa kan kuu soo baxaayo sababtoo ah Soomaaliya already waa soo dooratay passport informationka maxaa loo baahan yahay magacaaga last name-ka magaca awowga magacaaga koowaad iyo magaca aabahaaga magac waa inay isla haadaan marka informationkii hadaad xagga soo galiyay Faarax uu ahaa intan wuxuu ahaa Abdullaahi middle name-kan wuxuu ahaa Ahmed waxaa ku xiga passport number baasaboorkii numberkii saxda ah maahan waa tusaale ahaan aan gelinayo waa passport numberka waa kaasa so passportka goormuu dhacaya expiration datekiisa loo baahan yahay waxaan ka dhigayaa 12/12/2023 inuu 2023 ka dhacayo informationkayga maahan mar kale tan ku celinaya waxaa ku xiga country of authority of issuance yani baasaboorka wadanka laga qaatay waxaan leenahay isla Soomaaliya haddii aad Kenya tahay Kenya doorane haddii aad tahay South Africa doorane haddii aad tahay muxuu ahaa Ethiopian dooranaysaa baasaboorkaaga wadankii laga soo saaray inaad dooratid marka saddexdan qodob ee passport exemptionka waxaa loogu talagalay saddex qofood I am not required to submit passport information يعني قصد iguma ahan inaan information passport aan soo geliyo sababtoo ah stateless no nationality Soomaaliya tahay nationality waa leedahay soo nama quseeyo national of communist controlled country qof yani wax ka soo jeedo wadan aan dictatorship buu haysto anaga dictatorship nama haysto wadankeena passport uu leeyahay passportkeena waa heli karnaa unable to obtain passport inaan passport yani soo la soo bixi karin waa la soo bixi karnaa soo nama quseeyo informationka waa ka tageena oo waxaan aadaynaa qaybta sawirka hadda uu imaado sawirkaaga waa inuu size-kiisa saxan yahay qaabka sawirka uu yahayna insha Allah waa kana size-ka sawirka waa inuu ahaadaa 600 times 600 oo warita balac ah iyo 600 oo height oo dhirir ah inuu ahaado waana inuusan maaragtay dimensionkiisa uusan ka badanin 1200 oo pixel lagu dhuftay 1200 oo pixel soo sawirada nooca loo baahan yahay photo example waa kana gabdhihii soo weydiinayay muxuu ahaa madaxa inaa qaabsana miyaa maya gabadhaas xijaaban si u xijaabantaa isku soo xijaabi kartaan gabdhaha madaxa isqaabinayaan saan inay usoo galaan sawirkooda wiilasha ama raggana waa inay saan usoo galaan lama aqbalayo sawir hoos leh sawir color leh lama aqbalayo waa ninkan sawirkiisa iyo gabadhan yar sawirkeeda la aqbalaya sawirkaaga backgroundkiisa waa inaa iska fiirisaa inuu cadaan yahay waa inuusan yani waa inuu clear yahay yani la arki karo aanan color lahayn nagu celiya marka insha Allah qaybta sawirka aan ku xareen doono waa sawirkayga size-kayga inuu ii saxan yahayna waxaan ku ogaan karaa sawirkaygan kor tagayaa waxaan leeyahay properties markaa tagtid detail aan tagaya sawirkayga ma ii saxan yahay 600 times 600 widthka 600 heightka 600 uu ii saxan yahay marka nagu celi meesha sawirka choose new photo desktop ko ii saarnaa waa kan
maskiinka sawirkiisa waa kana waa gelinay waxaa noogu xiga mailing address in care of optional waa kaas waxba ha ku qorin haddaa rabtidna ku qor address line 1 aniga muqdisho inaad deganahay aan ku qorta haddaatay so addresskayga wuxuu noqonayaa madiina deganaa waxaan leeyahay 50 Jaale Siyaad Street so madiina laamiga maraan ka dhigay so 50 ka dhigan kartaa 30 ka dhigan kartaa 60 ka dhigan kartaa address line 2 waa optional sirigana baasaboorka soo kugu qoran yahay ama data u qortay Mogadishu districtigana wuxuu noqonayaa Banaadir postal code ma naqaano so waxaa leenahay no postal code or zip code option una siiyey countrygana waa isla Soomaaliya country where do you live so marka meeshaan rabaa inaan si fiican u sharxo country wadanka aad ku nooshahay iyo wadanka aad baasaboorka ka haysato way kala duwanaan kartaa tusaale ahaan aniga markaan xariisanayay waxaan joogay Egypt ama Masar saa u taqaanid magaalada Qaahiraan joogay meeshaan waxaan ku qortay inaan Egypt joogo balse wadankii aan u dhashay waxaan ka soo dhigay Soomaaliya inaan u dhashay so marka meesha hadda joogtid ka dhigaysaa haddii aad Kenya joogtid Kenya ka dhigaysaa haddii aad South Africa joogtid South Africa ka dhigay Uganda Ethiopia war meel allaala meel aad joogtid ka dhigaysaa marka insha Allah so addresskayga maadaama Muqdisho uu ahaa Soomaaliya inaan joogaan ka dhigayaan intana country you live in today Somalia phone numberka waa optional waa isaga tagayaa ama haddaa ratidna waa ku xareyn kartaa email address emailkayga ma ahan waa inaad buuxisaa laakiin optional ma ahan waa saasaan ka dhigay so marka level 13aad waxaan ka dhiganay levelka of high of educationka maxaa haystaa high school in ugu yaraato waa meeshaan akhriya you must have a minimum of high school diploma waa inaad yani haysataa high school ugu yaraan primarygaas waa isaga soo dareen balse hoos waxaa ku qoran you must have qasab macni waxaa kugu ah inaad haysatid high school diploma si aad u dhammaystirto lottery xariiskiisa ama haddii aad haysatid skilled worker yani inaad xirfad aad leedahay oo aad haysato ugu yaraan 2 sano oo training experience so marka aniga marka xareysanayo waxaan ka dhigayaa high school diploma inaan haysto high school degree high school no degree jiro oo yahay high school degree so marka high school degree aan ka dhigayaa haddii aad jaamacad dhiganaysid some university courses gelinaysaa hadhow markuu kuu soo baxane waxaa geenaysaa warqad aad ka soo qaaday jaamacadaada university degree haddaa haysid waa bachelor degree some graduate level course haddaa haystidna waad geli kartaa oo ka sareeya high school ka sareeya master degree haddaa haysid waa geli kartaa some doctorate level course haddaa haysid waa geli kartaa doctorate level yani PhD haddaa haysid waa gelinaysaa what's your current material status single miyaa tahay yes haddaa single tahay meeshasaa gelinay hadda I am married right now but like hadda yani xaasaan leeyahay informationka xaaskayga ma haayo so waxaan ka dhiganayaa inaan single ahay haddii aad married tahay uu saygaaga ama xaajidaada haddii aysan ahayn muxuu ahaa US citizen ama qof America sharci ku leh kana dooranaysaa haddii aad qofka yani muxuu lahaa ninkaaga manaagtaada ee haysato citizen hadday tahay ama low permanent resident waxaa laga wadaa green card kan hadda la balagareena haddii haystaan ama USA ay ku nool yihiin kaasaad dooranaysaa haddii maaragtay aad carmalta ama garoob aad tahayna divorce aad dooranaysaa widow haddii lagaa dhintayna waxaad dooranaysaa midkaas legal separate haddii aad maaragtay muxuu ahaa aad yani isfurteen waa intane legal separate haddii aad si sharci ku kala baxdeen kaasaad dooranaysaa marka aniga waxaan dooranayaa maadaama aan informationka xaaskayga heenin unmarried aan dooranaya inaan married ahay number of childrenkana waxaan ka dhigayaa 0 ilmo inaan haysanin because waxaan dhahay waxaan ahay single 15 qodob sidaasaan kusoo buuxinay waxba kameenan soo boodin informationkaaga si sax ah inuu ugu jiro waa inay islahaadaan baasaboorkaaga waxa kugu qoran iyo waxa aad gelinayso
so marka waxaan leeyahay continue wuxuu geenayaa page-kan so marka waxaa iska xaqiijinaysaa xogtaada inay saxan tahay wixii aan soo qorqornay maanta oo dhan meeshaan kugu soo koobayaa mid inaa isaga xaqiijisid kadibna hoostaana waxaa ku leedahay submit waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego page-kanito wuxuu isxirayaa 30 minutes kadib waa inaad ka gaarsiisid every 30 minutes wuu isxirayaa dadka iisoo qorayay page-ka iska kee xiraaya maxaa dhacay soo sababtoo ah estimate time-ka loogu talagalay waa 30 minutes ka hor waa inaad maaragtay aad muxuu ahaa aad boobsiisaan marka waxaan leenahay informationkayga uu ii saxan yahay waa jeegareeyey wax walba waa saxdii marka waxaan leenahay submit bisinkan uu qabto markaad submit leedihiin insha allah submit markaad dhahdid success uu kusoo qorayaa waraaqadaasaad helaysaa warqadan waa inaad meel dhigataa insha allah warqada markaad meel dhigato print yaa leenahay aniga hadda warqadeedu waan printer gareysanayaa printera guriga igu xiran printaan leeyahay si aan meel u dhigto ama haddii kale waxaa samayn kartaa emailkaaga ku dirsan kartaa oo muxuu ahaa oo kugu soo dhacaya muhiimadda aan u daabacayna waxay tahay confirmation numberkan iyo internetkan iyo waxa u baahannahay dhow marka la xareeyo markii uu soo baxo insha allah sida loo jeegareeyna waxaan fiirinaynaa hadduu ilaa yiraahdo insha allah May 7 uu soo baxaya 2022 insha allah meeshan saa ugu jeedid meesha laga fiirinayo meesha data aan soo gelinayno insha allah waxa si tadhow November 9 wixii ka dambeeyaan sharxi doonaa insha allah YouTube aan soo sameyn doonaa video waxaan rajeynayaa videogan inuu idin anfacay oo aad kaga bogateen insha allah waxaan rajeynayaa videogaas inaad si fiican uga wada bogateen aadna fahanteen qaabkii aan u xareeyay oo aan anigu isugu xareeyay sambal wahaa informationka aan geliyay mar saddexaad iyo mar afraad aan kusoo celinaya informationkayga ma ahan waa idinku tusaayay videogan sababtaan idinkugu soo gelinayna waxay tahay waa inaad muxuu ahaa aragtaan qaabka loo xareeyo barataan qaabka loo xareeyo qof bini aadanna aydan u baahanin wixii sanadkan ka dambeeya insha allah waraaqadii aan idiin sheegayana waa tanaa oo aan soo daabacday confirmation number ku qoran yahay soo daabaco sariirtaada barkintaada hoosteeda gasho May 7 markii la gaaran insha allah la soo bax si aad confirmation numberkaaga aad uga fiirsato oo aad u fiirsato lottery in select lagu dhahay in not selected lagu dhahay insha allah waxaan rajeynayaa videogan inaad si fiican uga wada bogateen wixii su'aalahan insha allah commentiga noogu soo qora asxaabtaadan la wadaag walaalahaaga la wadaag dadka aad jeceshahan la wadaag insha allah wixii su'aalahan insha allah sidaan sheegaba commentiga ama instagramka luuqan dadku ugu jawaabayay instagramka insha allah iga soo DM gareeya aada u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inoo kulanta dambe oo xiiso leh salaamu calaykum